اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الشباب ألم وأمل. موضوع walaaladu ii dhiibeen wuxuu ku saabsan yahay dhallinyarada oo lagu sifeeyey inuu alam laxaw yahay, dhib, isla markaana uu yahay amal, rajo iyo yididiilo, iyo ummaddu meesha uu ku jiro horu socodkeedu. dhallinyaranimadu markaa waa marxalo ama waa waqtiyada ugu muhiimsan nolosha qofka bini aadamka ka mid ah. waa waqtigaan odhan karno waa casrahu dahabi, waa waqtigaan odhan karno waa waqtiga ay xadidanto ama muuqato ama soo baxdo qofka shakhsiyadiisu iyo noociyadiisu. waa waqtiga ay burqato ama dilaacdo qaraa'ista iyo dhaqamada qofku uu leeyahay. waa waqti uu muuqdo dhankuu qofku u socon doono bidix iyo midig, ama wax positive ah oo iijaabiya inay ka soo baxaan, ama wax negative oo salbi ah. waa waqti qofka dhallinyarada ahi uu naftiisa guul gaadhi karo, ummaddiisana guul u horseedi karo, bulshadiisuna ay guulaysan karto. waa cagsigoo waa waqti muuqan karta qofka dib u dhaciisa iyo khasaarihiisa iyo liidnimadiisu. waxay dhahdeen shabaabnimadu waa cunsuru tadxiya walfidaa. marka bulshooyinka la eego, waa waxyaabaha keensada altadxiya walfidaa, nafhuridda. waa waxyaabaha keensada dhiiranida iyo horu socodka. waa cunsuru tajdiidi walbinaa bay dhahdaan. waa cunsurka keensada cusboonaysiinta iyo dhisidda ummadda. sidaa awgeed ayaa waxaa la yidhaahdaa shabaabnimadu waa wakhtiga ugu fiican ee qofka noloshiisa soo marta. bulshada dhankeedana waxay dhahaan waa iksiir ilxayaa. yacni geed baa jira bay dadku yidhaahdaan, wixii la saaraba barakeeya. bulshadu waa dhalinteedu dhankay u jeedo waxa barakeeya. dhallinyaranimada waxaa ka horeeya waa fudayd iyo carruurnimo iyo dheeldheel. dhallinyaranimada waxaa ka dambeeya waa da' iyo gabow iyo cidlo fadhi. idan dhallinyaranimadu waa wakhti u dhaxaysa labada xoog. dhallinyaradu dee waa shayga dadku wada jecel yihi. ka yare aan weli xadkaa soo gaadhin waad yartay haddaad tidhahda may buu leeyay waan weynay. kay dhaaftee roon haddaad tidhaahda waad yaro weynaatana may dhallinyaraan ahay buu leeyay. labada kooxood, kuwa sare iyo kuwa hooseba, waa meeshay raadcaynayaan. walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إلهي سبحانه وتعالى وكا ضعفي دنكا أبو ريبا ليلي عندوف يريو وحيرو علول هو يكوشيره دبتنا ضعفي الدبديد حوق دنسيي عروري عيدني ما تصومر تكدي بن حوق بعد شيء. ثم جعل من بعد قوة ضعفا xoog dabadii haddana tamardarriba u noqotaan. idan dhallinyaranimadu
waa wakhtiga u dhaxeeya labadaa wakhti cahdigaa safaha iyo carruurnimadu ay joogto iyo dhallaannimadu carruurnimo waa ciil laga koray Soomaalidu tidhaahdaa da'duna waa wakhti qofku maskaxdiisu bislaato laakiin maanka iyo jidhku aanu wada soconin wuxuu caqligu ka fakarayaa ama ka warramayaa aan jidhku awoodin inuu qabto kala gadaaleeyaan sidaa ogeed ayuha alikhwa wakhtiga uu insaanku muujiyo horumarka iyo waxqabadka iyo tallaabada mid xoog mid cilmiyeed mid jidheed mid aqoomeed waa wakhtigu dhallinyaradayay ولذلك baa culamadu waxay yidhaahdaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa sababta uu tilmaamay bay yidhaahdaan xadiidka sheegaya qofku aakhiro labadiisa gommadood inaanay ilaahay hortiisa ka zuulaynin 5 su'aalood ama 4 su'aalood riwaayaadka xadiidku labadaba u soo arooraanay saad u dhigtaba in la weydiiyo mooyaane yacni qiyaamaha markaad alla hortimaado subxaanahu wa tacaala laa tazuulu قدم عبد أو قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5 قيامة مركا إنه إلهي سور تاقنانا قفنا كما هر دقاقا يهلكا سألوكو حجينا إياه إلى إيو الدور سؤالات كجواب تمو يعني سؤالها وحكم ده عن عمري فيما أفناه عمري ياقي وحياتكم بحسي waxaa kaloo ka mid ah wa can shabaabihi fiima ablaah dhallinyaronimadaadii waxaad ku gaboojisay ama baaliga kaga dhigtay dhallinyaronimadii waa gabowdaa sida maradu marka la xidho ay u gabowdee baaliga u noqoto ayaa waxaa la yidhi wa can shabaabih fiima ablaah iyadoo cumrigoo dhan lagu weydiinayo iyo wixii aad qabatay ayaa wakhtiga kan isagu uu mudan yahay su'aalo gaara in lagaa weydiiyo su'aalihii cimriga lagaa weydiinayo dhan qaar aan ahayn oo gaara baa wakhtigan lagaa weydiinaya waayo waa fatratul injaaz waa wakhtigii wax soo saarka marka waa in lagu weydiiyaa wakhtigan maxaad qabatay maxaad soo saartay markaan dhallinyaronimada kaa dhigay ee aad xoog iyo caqligaba lahayd maxaad qabataa rabbi ku weydiinaya iyadoo lagu weydiiyey cimrigaagii oo dhan wixii aad qabatay su'aalaha waxaa kaloo ka mid a xoolaha xaggaad ka xoogsatay iyo xaggaad ku bixisay waxaa kaloo ka mid a aqoontaadii iyo wixii aad ku samaysay camalah wakhtigaasi waa wakhtiga uu qof wal oo insaani uu dib uga calaacalayo wixii dhaafay wakhtigaa wixii dhaafay ee aanu qabsanin buu ka calaacalaya haddaan dhallinyaronimadii sidaan yeelo haddaan sidaa wuxuu wakhti bixiyey ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس حديث ورينيو حديثه صحيح عن تلمامي إن شاء الله نبا ويمو وحو النبي كيري قال لرجل وهو يعظه بويري نبا النبي قوي مد بتنا النبي وعدي عليه الصلاة والسلام وعد يقول ننكي وشاقي وحكم ده شان قضب النبي كو وعدي نكا كان شنت قضب محيه اغتنم بو نبي كويلي اغتنم 5 قبل 5 شن كغنيميسو وكفائديسو انت انا شانكو ايمانين يعني شن شيء ايا وحي مدين بو نبي محمد تلمامي عليه الصلاة والسلام صحابي قاسي اوانين ايا وعدين ايو inuu si dhaba uga qaniimaysto qaniimadu waa waxa la helo marka dagaal la galo ee la jihaatamo bacda sabrin wa mujaahadatin wa mucaanaat ayaa qaniimo la gaadhaa yani wuxuu nabigu qadiyadda tan ku tilmaamaya inay tahay qadiyad ah inaad xoog uga qaniimayso shay taafiho xaqiiran laguma yidhaahdo iqtanim dukaanka wax walba yaanay dadku wax walba ka iibsanayo
warkaale ka qaniimaysa cidina ku odhanmayso waayo wax walba iska yaalay laakiin hadduu shay fiicnaayo jabani yaallaan waanad meel kale ka soo helaynin waxaa lagu leeyahy war ka qaniimayso halkan alaabaa taallo aad u baahan tahay inaad si fiican qaniimadu markaa waa wixii xoog iyo sabir iyo dadaal iyo kan lagu keeno waa ilaa haniima baarida buu nebigu ku tilmaamay maalan soonka la soomo maxaa la yidhahdaa shitaaga jiilaalka waqti qabow maalintu yar tahay waxaa lagu tilmaamay soonkooda inay tahay alghaniima albaarida iyo cibaadaadka habeenkii la sameeyo ee habeenkii oo dhan baa dheer oo dhinacaaban dhulka kuu qabanaynin waa inaad iska kacaysaa haniima baarida buu kuwaa nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam idan nebigu wuxuu ku yidhi shan horteed ka haniimayso muxuu yahay shabaabaka qabla haramik dhallinyaronimadaada ka haniimaysa buu nebi maxamed ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam intaanad gaboobin yacni hiya alfursa wakhtiga dhallinyaronimadu waa fursaddii walidalik buu nebigu wuxuu leeyahy fursaddaas iyay ku dhaafina haniimayso wuxuu kaloo nebigu leeyahay sixatik qabla saqamik ka haniimayso maxay caafimaadka inta aanad bukoonin qofku markuu bukoodo waa xaalat alcajs waa taahaysaa calaacalaysaa wax badan qaban kari maysid markaad si caafimaadka qabto wax walba waad qaban kartaa nebigu wuxuu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam war wakhtigaad caafimaadka qabto haniimayso wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waghinaaka qabla faqrik marka gacanta wax kugu jiraan aad hanigatay ka haniimayso inta aanad faqiir noqon waxaad bixisaba waayin oo aakhira wax kasii dhigo wuxuu nebigu leeyahy wa faraaqaka qabla shughlik ka haniimayso wakhtigaad firaaqada haysato inta aanad mashquulin dhallinyaraduna wakhtigaa ama haniimay u dhaadhacaan waxayaataka qabla mowtik buu nebigu yidhi inta aanad geeriyoon nolosha ka haniimayso laakiin kuwa uu nebigu yidhi ka haniimayso dadku labay u kala baxaanuun cid fursaddaa ka faa'iidaysata iyo cid fursaddaa ku khasaarta qof aan dhallinyaronimadiisii waxba ku qabanin cilmi ku baran xoolo ku xoogsan ummad wax ku tarin dad ku hoggaamin wanaag ku qabsanin hurdo iyo filim iyo kubad iyo orod iyo seexasho iyo suuq warwareeg iyo intaa ku dhammeeyey qof wakhtiguu caafimaadka qabay ismashquulin iyo fadhi ku dirar kaga dhammaatay markuu xanuunsanaya dee waxbaba qaban kari maayo badan qof wakhtigu firaaqada lahaa qofka dhallinyaradii waa wada firaaqo inuu isagu camal samaysta mooyaane qofku markuu weynaado dadka ku xidhan iyo arrimaha laga sugayo iyo waxaa tiro bata laakiin markuu dhallinyarada yahay waa wada firaaqo wax walba wuu qaban karaa laakiin qaar baabay firaaqadu dhib ku noqotaa oo wakhtiga maxaynu ku dilaa kubad daawo filim daawo meel kale daawo suuqa soo orod yacni dhib ay ku tahay firaaqadii ayaaba xanuun ku ah nicmadii uu nebigu la ka haniimaysa isaga ku ah wuxuu wakhtiga ku dili lahaa buu raadacaynaya walidaalika ayuha alikhwa da'dani waa da' qofku markay dhaafto u calaacalo umamkana cidda dhista ee isbeddelka samaysa ee hoggaanka u qabata waa dhallin wahal kaana saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayh waaalih wasalam ilaa shabaaba oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii la socday dhallinyaro mooyaane miya wax kala ahaayeenba odayadii maxay yidhahdeen markay diintu soo gaadhay innaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin wa innaa calaa aahaarihim muqtaduun bay yidhaahdeen waayaalku waxay yidhaahdeen annagu waxaanu soo gaadhnay dadkayagii waaweynaa waxaanu ka soo gaadhnay diin iyo ku dhaqan iyagoo haysta waa abujahal iyo waliid iyo maxaa la yidhaahdaa abi aalib iyo waayeelkii quraysheed wax islaamay waa fara ku tiris markii hore laakiin yaa islaamay islaamka u gargaaray dhallinyaro islaamkan dadkiina soo gaadhsiiyey dhallinyaray ahaayeen cumar dhallinyaru ahaa abibakar baa ugu weynaayo dhowr iyo 30 jir buu ahaa 7 meelaha waxa kaloo dhami dhowr iyo 20 jir iyo dhowr iyo 10 jir bay u badnaayeen
saxaabada macruufka la yaqaanay taariikhda islaamka kule waxa la yaqaanay wax bedelay waa dhalinyaro Ali ibn Abi Talib isagoo dhalinyaro oo qaan gaadhin buu islaamay Sa'd ibn Abi Waqqas isagoo dhalinyaro buu islaamay Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam isagoo dhalinyaro dhowr iyo 10 jir uu islaamay Abdullah ibn Umar isagoo dhalinyaro buu joogay Abdullah ibn Amr ibn As isagoo dhalinyaro buu joogay Ibn Mas'ud wuxuu leeyahay nabigaanu la dagaal galay anagoo reeraba lahayn markaad saxaabada u fiirsato ibn Afra nabigu alayhi salatu wasalaam dhalinyaro ay haayeen baab kasta raggii ka warkeenay jihaadka raggii ka warkeenay dhalinyaro ay haayeen cibaadada raggii ka warkeenay dhalinyaro ay haayeen wanaagga iyo wax qabadka raggii ka warkeenay dhalinyaro ay haayeen mesela bacd al-amthal aan siiyo nabigu alayhi salatu wasalaam baa dagaal u soo baxay Sa'd ibn Abi Waqqas baa wuxuu leeyahay walaalkii oo ka yar buu arkay oo dhuudhumanay oo maxaa dhaco wuxuu leeyahay nabigaanan rabin inuu arko waayo uu reebaya hadduu arko waad yartay hadh baa la leeyahay bal nabiga alayhi salatu wasalaam waxa taqaaneen ghazwaadka qaarkood Uhud intuu soo bandhigay dhalinyaradii inuu qaar badan yiri idinku waa yaryartiina hadha oo saxaabadu ragga qaar ay yiraahdeen ninkaasi waa nin yaqaana gamuunka sida loo riday soo daa ilaahay rasuulkiisa waa nin ku fiican haddii xagga dambe la dhigo gamuunka ganistiisu ku wanaagsan yahay oo kii la yiri soo bax oo mid kale oo yar oo saxaabi uu yiri ilaahay rasuulkiisa uu ka atii deysay anuguna markaanu iska laba dhinaciisa dhulkaan dhiga ana ka xoog badan daana ciidanka la igu daro balagdama la yiro kuma baha kanin adna soo raac baa la yiri ibn Umar wuxuu ka mid ahaa kuwii markaa loo diiday sanadadii dambe ahzaab meelaha ka soo qayb galay yani shabaab bay ahaayeen kuwii cilmiga siday dhalinyaro ahaayeen Mu'aad ibn Jabal buu nabigu wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalaam waa ninka ugu cilmi badan ummadayda fil halal wal haram xaraanta iyo xalaasha waa ninkuu nabi Muhammad u doortay alayhi salatu wasalaam inuu noqdo safiirkiisa uu dirayo Yaman ee nimanka ahlu kitaabka ee jooga kristanka degan Yaman inuu diinta gaarsiiyo ee uu ku leeyahay innaka waxaad u tagi doontaa qoom ahlu kitaaba ee falyakun awwala ma tad'u ilayhim waxa ugu horeeya aad ugu yeedha shahaadatu an laa ilaaha illa allah noqoto wadhalinyaro raggu nabigu diraya alayhi salatu wasalaam wadanada u diraya cali buu qaadinimo ugu diraya ama gobolada qaarkood inuu xukumo Mu'aad ibn Jabal markii dambe uu dhimanayay dhowr iyo 3 jir baa ku dhintay mar dambe oo nabigu geeriyooday yani ahdul khilaafa buu geeriyooday dhowr iyo 30 buu haba lagu tilmaamaa idan dhowr iyo 30 jiray ku ahaayeen culimo ummadda hagta oo looga dambeeyo funuuntooda cilmu al-faraid nabigu ku leeyahay wuu yaqaana afradukum wa zayd waa inan yar nin dhalinyaro ah wanigu nabigu u diray alayhi salatu wasalaam war yuhuud markaynu wuxuu qorayna aamini maaye cid waxay qortaan rabaa waxa la yidhi ninkan baa nin dhalinyaro fahmo badan u dir culimada taariikh qaar kamid ah waxay yiraahdaan 17 casho ku soo bartay afka cibriga sida loo qoro yahuudiya luqadeeda uu xad ku noqdo inuu nabi maxamed kaatib u noqdo waraaqaha murasalaadka ay nabiga iyo yahuudis weeyarsanayaan iyo heshiisyada iyo waxa la galay inuu nin qori kara noqdo warag rabay inay wax bartaan buu ahaa 17 maalmood inuu cilmi dhan oo luqad ku suga warag rabay inay soo jeedaan wax bartaan buu ahaa waxay ahayn duul cibaadada ni'ma ar-rajul Abdullah ibn Nabi ku tilmaamay ibn Umar rag isaga u fiican aduu habeenkii kaco yani wuxuu nabigu tilmaamay مثلا عبد الله بن عمر بن عاص عباده سيكو هيين gabadh baa loo guuriyay waa nin dhalinyaro maanta waxa laga yaabaa dhalinyarada waqtigan joogta naaga raadisay suuq wareeg inay ku dawaqeen oo kuwii naaga hore u waayay computerka baadh iyo qurunka daawo inuu ku dawaqay laakiin aabihii baa intuu soo kaxeeyay kan gabadhu meheriyay dabeetana gabadha xaggeedii ba isku mabuu hawline habeenkiina salaad buu taagan yahay maalintiina wuu sooman yahay odaygiiba maalintii dambe soo maray Amr ibn Aas ba gabadhii soo maray wuxuu yiri naabal ka waran ninkii
waxay tidhi wallahi waa nin fiican laakiin gurigaba saanu imid dee taftayda ma taaban maradaydaba gacantiisuba gaadhin hadduu qiyaas nin dhallinyaro oo loo guuriyey waa inan qurux badan oo qoreeshii guriga u joogto oo xalaal u ah oo aanay hunguri badanba ku haynin oo maxaa hunguri ku haya jannada iyo xuuralcaynta iyo kuwa jooga hunguri ku haya oo muxuu wadaa maalin oo dhanna waa soomaya habeen oo dhanna salaad buu taagan yahay oo dabeetana abihiintu xanaaqay oo yidhi inan reer ka dhalataan intaan kugu daray baad adna cidle ii taagantay inakeen waar buu yidhi waa soo qabtoo nebigu ula tegey ilaahay rasuulkiisiiyow ninka kan gabadh reer hebelaan ku daraysana halkaasuu tafteeda ma taabanin war bal warran baa la yidhi wuxuu sheegay de inuu maalin oo dhanna sooman yahay habeen oo dhanna taagan yahay war qur-aanka imisaad ku dhammaysaa buu nebigu yidhi dee habeen kastaba waa dhammeeyaa buu yidhi ninkani qur-aankaba habeenkiibuu ka baxaa salaad isagoo u taagan buu ku dhammaynaya dabeetana riwaayadka qaarkood wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war 40 ku akhri 40kii cashaba mar dhammee buu riwaayadka qaar sheegaya markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ka xoogan baan awooda ee dacni astamtic bishabaabi wa quwatii iddaa aan xooggayga iyo dhallinyaronimada ku raaxaystee buu leeyahy raaxada wuxuu u arkaa ilaahay cibaadadiisa markaa wuxuu leeyahy ilaahay rasuulkiisiiyo wii fasax wakhtiganaan xoogganay baan rabaa inaan ka warkeenee markaasaa la yidhi 30kii casho mar dhammee markaasuu dib u celiyey markaasaa la yidhi 22kii casho markaasuu dib suu nebiga hadalka isugu celinayana uu lahaa ilaahay rasuulkiisiiyo iddaa dhallinyaronimadii iyo xooggaan ka faa'iideeye ayuu nebigu markii dambe wuxuu ku yidhi 7 ku akhri kaf badan baan awoodaa wuxuu nebigu ku yidhi 3 wax ka yar qofkii ku akhriya qur-aankaba ma fahmo idan dhallinyaray ahaayeen cibaada markay timaado rag ku ah cilmi markuu yimaado rag ku ah jihaad iyo qiyaada markay timaado dagaalkii dowladdii ugu weynayd ee wakhtigaa jirtay waa dowla romaniya roman empire dagaalkii koowaad ee roman empire iyo muslimiin ay wada galaan 3 nin oo dhallinyaraa buu nebigu madax uga dhigay la yidhi jacfar ha hogaamiye zayd ibnu xaaritha iyo maxay iyo cabdillaahi ibnu rawaaxa iyo jacfar iyo zayd 3daasaa madax looga dhigo la yidhi hebel hadduu dhinto hebel ha qabto hebel hadduu dhinto hebel ha qabto 3 nimo waa dhallinyaro waa shabaab bale kaa dagaalkii ku xigay ee qolada loo saarayay zayd inankiisii baa looga dhigo 18 jira zayd usaamata bnu zayd ayaa hogaaminaya usaamata bnu zayd oo 18 jira hogaaminaya sidaa awgeed waxay ahaayeen marka dagaal la yimaado rag dhallinyaray ahaayeen saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka la yimaado cibaado dhallinyaray ahaayeen marka la yimaado cilmi iyo barashadii waa dhallinyaro waxay ahaayeen field kasta waxaad garan kartaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii beder markuu galay cabdiraxmaan ibnu cawf baa wuxuu leeyahay dagaalkii beder oo soconaya oo laba yaryare ay hareeraha kaga jiraan oo dee uu cabsanayo isleeyahay labadan inanna waaba dhallinyare male waaba la dili doonaa rag waaweyn oo xooggan malaa'igtaada ma joogaan ayuu kii koowaad gacanta qabto wuxuu yidhi adeer ninka nebiga looga taag waayey baan rabaaye abujahl waa kee buu yidhi wuxuu yidhi abujahl maxaad ku falaysaa waxaan rabaa maanta midkaaya inuu aakhiro qabta buu yidhi abujahl oo awr leeg buu yidhi oo halkaa ka muuqdoo dagaalamayaan ku yidhi buu yidhi waa kaa intaan kan tilmaamaya mid kale dhinaca igu dhegay buu yidhi markaasuu yidhi adeer abujahl waa kee markaasaan ku yidhi buu yidhi oo maxaad ku falaysaa waxaan maqlay buu yidhi nebi maxamed baa looga taag waayay calayhi salaatu wasalaam intuu magaalada maka joogaye maanta midkaaya inuu aakhiro qabtaa baan raadin waa dhallinyaro ansaara ibnay cafraa waa 2 nin oo dhallinyaro ansaara abujahlma ma yaqaanin manay arag laakiin waxay cadho u qabaan nimankii nebi maxamed maka ka soo saaray bay ka cadhaysan yihiin dabeetana wuxuu leeyahay maantaa fursadii timi abijahalna joogaaye waxaan rabaa ninka abijahl la yidhaha ninkan uu cadhaysay xataa bidhaantiisa garan maayo
marka wuxuu leeyahay dadka iga dhex tilmaama Abu Jahal ku yahay labadiina buu yidhi sida gorgorka intay u haadeen ayaan arkay buu yidhi iyagoo seefta Abu Jahal ba ku boobay dhulkay ugu tuureen dabeetana waa soo noqdeen nabiga u yimaadeen mid waliba isagoo le anaa dilay ilaahay rasuulkiisa ninkii waan soo dilay seeftiina miyaa maydheen buu ku yidhi may bal itusa buu yidhi seeftii oo dhiigga labay tuseen dabeetana wuxuu ku yidhi kilaakum aqad labadiinuba waa disheen dhiiggani waa kii Abi Jahal buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam labadiinuba Abi Jahal waa disheen Abi Jahal labadan dhallinyaradii seefahay ku dhufteen dhulkay ugu tuureen naftu kamay bixin nin kaloo dhallinyara baa soo maray Abi Jahal oo meesha naftu haysato dabeetana wuxuu yidhi war Allaha ku hoojiye maadigii baa halka jiifa buu ku yidhi ninka kale dhallinyaradii waxay yidhaahdaan culamada taariikh waa nin aad u Itaaliyar oo addima dhuudhuuban oo gaaban oo naxiif ah waa Cabdullaahi ibn Mascuud nin aad u tamar yar buu ahaa xagga tamartii xoogga waa kuu nabigu lahaa intay dabayshu ka qaaday marada addimadiisa ay qosqosleen qola saxaabi markaasuu yidhi ma dhuudhuma fiiqnidiisa ku qoslaysaan ilaahay baan ku dhaartay alle agtii buurta Uxud kaga culus buu nabigu ku yidhi labada majooda fiiqana arkaysaan Uxud ka culus buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtii ibn Mascuud baa kiyo meesha jooga soo u yimi laabta intuu ka fuulu madaxa ka soo gooyay ay sheegaan kuwa taariikhdu kibirka ninkan haya war halkaa hayga gowracin buu yidhi luqunta iyo yani wuxuu rabaa madax marka la gooyo madax luquri la socoto qurux badan inuu noqdo xaga dambe ka goobu yidhi xagaa ka gooynine Abu Jahal ala kullin saddex nin oo dhallinyaro Abu Jahal ka takhallusay waxaan uga jeedaa saxaabadii Nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen dad dhallinyaro ah oo nolosha bedela ninka dhallinyarada ana markuu dariiqa raaca saxa ah dariiqa inuu ummadiisa iyo dadkiisa iyo aakhiradiisa u xoojiyo marka uu raaco waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam carshu raxmaan maalinta qiyaamaha ay cadceedu soo dhawaato waa maalin adag qiyaamo waa 50,000 oo sannadoodba meel la taagnaanaya dadka la xisaabaya dunidan aynu joognaaba waxaa laga yaabaa dhowr kun oo sannadood inay soo jirtay inta basharku duqnoolaa 50,000 oo sannadood maalinta qiyaamo weeyaan 50,000 ee sannadood cadceed baa la hoos taagnaanaya dabeetana nabigu wuxuu tilmaamayaa maalintaasi dadka meel hoos oo hadh oo ay hadhsadaan haystaa 7 ka mida buu nabigu yidhi 7 waxaa ka mid ah imaam caadila nin ummad hogaamiyey laakiin cadaalad ku hogaamiyey waxaa ka mid ah maxay 7 uu nabigu tilmaamay washaabun nasha'a fii cibaadati illaah nin dhallinyaro ku koray alle cibaadadii baa ka mid ah walidaalika ayuha alikhwa waxaan leenahay namaadijta qur-aanku uu tilmaamayaa inagaga filan dhallinyaronimada iyo say qiimaha u leedahay ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dhallinyaro waalidkeed adeecday oo ka dambaysay oo manaasishaa gaadhay manzilo ah waalidka hadalkiisa xataa gowracna ha noqday inuu noqonayo inuu aqbalayo soo qur-aanka nebi ismaaciil ilaahay inooga warramayo dhallinyara oo aabbihii nebi ibraahim leeyahy waa ku gowracaya oo leh yaa abati ifcal maa tu'mar aabba wixii lagu faray oo dhan samee anigana waxaad helaysaa anigoo maxay anigoo sabraye dhallinyaradan ma waataa waalidka ixtiraamka siinaysa waxaa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya dhallinyaro dhowrsanaatay oo shahwaati nafsigan iyo waxaan ka dhowrsanaatay qisatu yuusuf qur-aanka waa ku akhrideen nebi yuusuf oo gabadh qurux badan oo ay mufasiriintu yidhahdaan suleekhaa la odhan jiro aad bay u qurux badnayd baa la ydhahaa oo boqortooyada ka tirsan oo boqorku qabo ayaa hunguraysay nebi yuusuf oo addoon ah oo gurigeeda ku hoos nool oo ay ka xoog badan tahay oo ay albaabada u xidhxidhatay oo ay cidlo la joogto oo diiday oo isku dayday inay kufsato uu cararay
ay maryaa ka daldalaacisay dhabarku ay ninkii boqorka ahaa ku kulmeen albaabka ay tiri isaga ay boobayay isna uu leeyahay iyada ay boobaysay oo quraanku uu ka warramaya iyadoo dumarkii boqortooyooyinkii meelaha joogayba intay u shireen ay ka yaabeen quruxdiisa intay faraha isgoogooyeen kadibna ay tiri la in lam yafcal ma amuru allaan ku dhaartay waxaan faraya hadduu yeeli waayo ama waan xidhi oo kuwa dulaysan buu ka mid noqon ama wuxuu samayn doonaa inuu la tunto dumarka loo baahanya inuu la tunto oo ilaahay baryayoo leh rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahayow xabsiga aniga agtayda lagaga jacayl badan yahay waxay igu yeedhayaan waa dhallinyaro aan xaas lahayn oo meel aan laga garanayn jooga qariibku dee wuxuu is idhahdaa ceeboobi mayse soo maaha markaad mid yaroo madoobo meelaha iska ordayato oo habla cadcadaad la joogto adeerku arki maayo reerkiinni kuma garanaya de waxaad soonaysa ceeboobi maysid laakiin nebi yuusuf ceeboobi maysid ma taagna ee wuxuu taagan yahay xataa hadday xabsi tahay xabsigaan gelaya qur-aanku wuxuu ka warramayaa dhallinyaro asnaamtii la rumaysnaayoo dhan madaxa ka googooyey nebi ibraahim oo dhallinyaro ah oo intuu sanamo madaxa ka gooyey kii u weynaa intuu seefta sufay ka tegey ay maxay yidhaahdeen waxaanu maqallay fatan waxay ku sifeeyeen wiil dhallinyaro nin dhallinyaro ah oo hadal hayay baanu maqallay bay leeyihin oo qur-aanku ka warramaya fatan yadkuruhu yuqaalu lahu ibraahim qur-aanku wuxuu ka warramayaa dhallinyaro waddankoodii iyo boqornimadii iyo guryihii qusuurtii iyo wuxuu dhan uga hijrooday ilaahay diintiisa inay ilaashadaan oo godgalay qusuurna ka tegey innahum fitya ayaa ilaahay ku tilmaamay ereyga waa loo qasdiyey innahum duul ilaahay rumeeyey bay ahaayeen lama odhan waxaa la yidhi dhallin bay ahaayeen shabaab ilaahay rumeeyey innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda ayuha alikhwa qur-aanku wuxuu ka warramayaa markaa dhallinta loo baahan yahay noocay tay walidalik baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka in badan dhallinyaro kala nooca inooga warramay haddaba ayuha alikhwa shabaabku dhallinyaronimadu waa alam waana aamaal waa aamaali lumma oo kuwa aan soo sheegay waa aamaashii waa dadkii wax beddelay waa dadkii qaadada noqday waa dadkii ummaddan hoggaamiyey diintan hadda bilyan iyo badhku ama 2 bilyan dadka ee dunida ay rumaysayeen maanta inta dul saarani intaasoo bilyan iyo bilyanoo horena ay soo dhinteen dhallinyara ilaahay cududeeda ku taagay dhallinyaro laakiin dhallinyaradu mar kalena waa xanuun ummaddu waxay aaminsantahay markay u gudbin kari weydo shabaabkeedaasi shabaabkeedu markuu caqliga toosan waaye uu lumo waa ummad arkaysa gebi inay ka dhacayso yurub maanta in badan oo filosofariskeeda iyo aqoon-yahankeeda iyo siyaasiyiinteedu way qaylinayaan way digayaan maxay ka digayaan mustaqbalkooda dambe waxay leeyihin noocan hadda nolosha ay u socoto haddaynu ku wadno mustaqbalka dambe xataa inaynu wax dhali kari weynaa laga yaabaa wax guursadaba in la waayo mid ka mid a buug buu qoro wuxuu yidhi waxaa ii muuqata buu yidhi yurub oo isugu soo hadhayn dad gabgaboobay oo caqli gaboobay leh oo guryo gaboobay ku jira buu leeyahy yacni tajdiidkii baa lumaya markaa yurub mustaqbalkeedu buu leeyahy waa dad wada gabgaboobay oo caqli gaboobay wata oo guryo gaboobay ku jira shabaabkii loo baahnaa inay beddelaan baa muuqan bay leeyihin jiilkan soo socdaa bay leeyihin yurub duniday hoggaamisay gumaysatay laakiin waxay leeyihin kuwan aanu arkaynaa maaha kuwii hayn kari lahaa caalamkii maanta aanu haynay bay leeyihin caalamkaanu gacanta ku haynay walidaalika ayuha alikhwa
dhallinyaranimada markaynu dadka kale ka nimaadno innagu ka Soomaali ahaan ama cumuuman ka muslim ahaan alamka ugu weynayna haystee koowaad waxa weeyaan diyaacu alhuwiya daraad baan ka warramaya mawduucii ahaa maxay alhuwiya qofka muslimka identitygiisa waxaan leenahay dhallinyarada tan alamka inaga haysta waxa weeyaan waxa muuqata dhallinyaro badan oo luminaysa huwiyadoodii shakhsiyadoodii dadnimadoodii waxay ku calaamadsanaayeen islaamnimadoodii سعيد بن مسفر شيخ الله يرضى موضوعا جيدين إياه الشباب عالم وامل أيها حلي الهوية الرسمية آخر أبو مركا حباشا لغو هوية دا لغويدين يا بيدي لكن والهوية الرسمية أيضا تتيجا واتجيريو تي عالم كان واتكبحضي حاجات تجيسة عالم عصبة آخرة وقوه الرئيس حباش عالم البرزخ baad bilaabaysaa wixii ka sii dambeeyana xaggaas aad u sii soconaysaa labada guri ee lagu hoydo mid baad ku socotaa laakiin godkan buu ka bilaabmayaan labada guri ima inuu janno noqdo iyo inuu naar noqdo godkan buu ka bilaabmayaa dan waxa lagu weydiinayaa buu leeyahay identity card-kaaga war balkeen huwiyadaada lagu leeyahay waa laba malag baa qof kasta u yimaada marka xabaasha la dhigo oo munkar iyo nakiir la yiraahdo oo dadka argagax geliya oo qofka meydka intay soo fadhiisiyaan argagax geliyo weydiiya huwiyada keen identity-gaaga keen identity-gu maalinta ma aha buu yidhi magacaaga cidi ku weydiin mayso oo qoladaada cidi ku weydiin mayso oo xoolaha dunida ku haysatay cidi ku weydiin mayso oo inaad wasiir ahayd iyo inaad madax ahayd cidi ku weydiin mayso saddex su'aalood oo muxaddad baa lagu weydiinaya kuwaas baana calaamadiya identity-ga lagaaga baahan yahay aqoonsigaagu saddexdan su'aalood mu ka dhashaa man rabbuk wama diinuk waman nabiyuk waa identity waa huwiyadaada dhabta ah rabbigaa waa kuma baa lagu weydiin haddaad dunida sugnayd markaad joogto dariiqa saxa haysay rabbi allahu baad ku jawaabi waxa lagu weydiin diintaadu waa maxay haddaad dunida sugnayd waxaad ku jawaabi waa islaamnimo waxa lagu weydiin doonaa nebigaagu waa kuma ama ninkii laydin soo saaray maxaad odhan jirteen maasaad odhan doontaa waxaan ka markhaati kacaya inuu ilaahay rasuulkiisii iyo nebigiisii ahaa waa su'aalo hadda aynu wada garanayno laakiin jawaabta inaynu wada garan doonno lama garanayo sideedaba macluumadu haddii lagu baqogeliyo lagu argagax geliyo macluumaadka maskaxda ku jira way daataan haddii lagu gilgilo lagu idhaa magacaa inaad horeba magacaagii u sheegi kari weydaa laga yaaba inaad cabbaar ku waalato waxaa laga yaabaa baquhu ardada imtixaanka gasha ardaygu hadduu markuu imtixaanka loo dhiibo uu baqo wuxuuba way ka kala cararaan wixii uu soo xiftiyey iyo wixii oo dhan wuu garan waayaa waa dhidid waaweyn unbaa ka yimaado waxbuu iska qorqoraa hadhow markuu ka baxo unbuu wixiiba xasuustaa allah war su-aashaasina caynkaas ahayd kana caynkaa oo hadeerba waad fadhidee maxaad u sheegi weyday laba malag oo wax ka nixinaya oo midab nooc gaara leh markay ku soo qabtaan ay ku gulgilaan huwiyadaada ku weydiiyaan aad garan weydo alamkayna haystaa waxa weeyaan shabaabkeennu maanta waa inay gartaan huwiyadoodii waa inay garan karaan yaa rabbigooda waa maxay diintoodu waa kuma nebigay rumaysan yihin islaamnimada say ugu dhaqmayaan maanta waa in laga jawaabaa aalaamtayna haysata waxaa ka mid ah oo sheekhaasi tilmaamayo cadamu taxdiid alhadaf dhalinteenna oo aan meelay u socotaba garanayn hadaf nolosha kama leh muxuu rabaa inuu nolosha xaqiijiyo waxba wuxuu doonaya ma leh inuu iska boodboodo timaha xiirxiirto dhaforrada mudmuto wahaluma jara saasaa la samaynayay
nabigu wuxuu tilmaamayaa aakhira munaafiqiinta iyo gaalada iyo markay hawiyada la weydiiyo haa inay ku jawaabayaan laa adri waxba garan maayo. maanta dhalintu in badanoo ka mid hadaf nolosha kama leh, muxuu u nooliyey kama jawaabi karayo. laakiin wuxuu rabaa inuu boodboodo, wuxuu rabaa moodada dambe ee naag baa isqaawinaysa tv-ga ka muuqanaysa marya xidhxidhanaysa, inantu waxay rabtaa naagtaasi marya ay xidhxidhayd inay xidhato. inan baa kubad laalaadayo tv-ga ka muuqanaya, inankanina wuxuu rabaa inuu kubad laalaado. bale laadiba maayo inuu kaan magaciisa meelahan iskaga dhadhajiyo, kolba shaadh magaciisu ku qoraya inuu xidho, isaga wuu ahaado markaa dhifooste. wuxuu ku leeyahy tiim hebel baan anugu xoojiyaa, noloshiisa waa tiim hebel baa iska leh, uu ku dagaalansan yahay oo ku xiiqsan yahay oo u socdaa. hadaf ilxayaa, maxaad nolosha ka rabtaa, maxaad injaazinaysaa? cimrigu waa wax yar, wakhtigan yare aad nooshay maxaad rabtaa inaad xaqiijiso, inaad ifka keento? qofku waa inuu nolosha hadaf ka lahaada. dadka gaalada ahi hadaf aakhiro oo dambe ma leh, laakiin klaaska marka la soo galo la yidhaahdaa maxaad rabtaa inaad noqoto? injineer, adna booliis, adna siyaasi, askari, waxbay sheegtaan ardaydu, waxaasuu ku socdaa. innaguna iminka caqliyadeennu intii unbay noqotay. maxaad rabtaa inaad noqoto? injineer, booliis, askari. adiga gaalku isku ahdaaf baa tihin, isku meelunbaa u socotaan, isku waxunbaad raadacaynaysaa. waaba ka hadaf kale, inta kalena hadaf ma leh. idan hadaf baan jirin. alamka dadkan dambe inaga haysta waxaa ka mid ah alfashalu waalkasalu addraasiy. dadkan dambe, dhalintan dambe, waxbarashadii bay nacday, way caajistay. waxay iska rabaan habeenkiina inuu soo jeedo tv-ga iyo waxa ka soconaya uu daawado, maalintiina inuu hurdo. iskuulkan iyo waxbarashadan iyo jaamacaddan iyo waxanoo dhammi dhib bay ku yihiin. umamka maanta dunida joogaana gomadoodu waxay ku sugantaa waa cilmi, waa sabir iyo dadaal iyo barasho. ma waxay idinla tahay maanta maraykan iyo yurub iyo waxay dunida ku hoggaamiyaan ma muusiga iyo xiirxiirka iyo kubadlaadistaa bay kula tahay? maya, intan wax magaratada lagu madadaaliyaa. timaxiirkan iyo muusigan iyo kubaddan wax magaratada lagu madadaaliyaa. laakiin maxay dunida ku ahaan? dunidana way ka taliyaan. maxay kaga taliyaan? dadaal iyo sugnaanshiyo iyo waxbarasho iyo ka midho dhalin ayay kaga warkeeneen. aqoon baa dunida lagu maamulaa, dunida technology lagu hoggaamiyaa. umamka maanta dunida hoggaaminaya budgetka dowladda ugu tirada badan leh waxa la geliyaa cilmi iyo baxthi cilmiya. ummad waliba waxay tijaabinaysaa inaan ummaddeeda lagaga horraynin cilmi baadhista iyo wax cusub dunida inay ku soo kordhiyo. waxay tijaabinaysaa ummad waliba shabaabkeedu inuu noqdo caqliyada cusub ee wax soo saaraysa. walidaalika baa jaamacaadka dunidu waxay u samaysan yihiin inay wax cusub ku soo kordhiyaan. innaga xataa haddii jaamacada la dhiso, waraaquun baa la qorqoraayo, wax kalema soo kordhiyaan. ka ugu badan buug yaroo qoranunbaa ka soo baxa, laakiin wax cusub oo dunida ku soo kordhiya kama muuqato. ama iyaga jaamacaadkoodu waxbay inventions, maalin kasta jaamacaadkan wax cilmi cusub baa ka yimaada. cilmi dhakhtarnimo, cilmi technology, cilmi caafimaad, wuxuu doonaya ha noqdo, maalin kasta cilmi cusub oo ay jaamacaadku ka iibiyaan markaasi. ama hay-adaha dhaqaalaha le iyo shirikaadka mutacadidul jinsiyaati waxay maal gashadaan ardada yararee jaamacaadka joogta iyo brofesorada jooga ayay maal geliyaan. waxaa laga yaabaa lacagta dowladdu bixisa lacaga ka badan bay bixiyaan shirikaadka waaweyn. maxay rabaan? technology ay raadcaynayaan bay rabaan. cuquushan dhallinyaradee cusubi inay daaha ka rogto. maalin walbana cilmi cusub baa daaha laga roga. ayaa ka roga hal brofesor iyo 5 arday oo yararoo wato, 6 arday, 3 arday, 4 arday. waa dhallinyaro. dunida waxaan bedela waa dhallinyaro. halka brofesor wuu hagaa-uun, laakiin ciddan tajaaribtan iyo waxaan wada waa dhallinyaro. dunidu markaa aqoon bay isku hagtaa. innaga laakiin alamkayna haysta waxaa ka mid ah fashal baynu isku hagaynaa. dhalinteenna waxay rabtaa
inuu seexdo wax cuno timaha saliideeyo mar iska xiiro mar qadaadka ka gooyo mar xagga hore ka gooyo mar surwaalka dhajiyo mar daldalaaciyo shaqaladiisu isaga waa intan waar iskuulka dadaal war waxaan qaba ma xad sheegaysaa hadhow odayguba social buu qaadan jiray anaguna socialkaan qaadanay ama tagsiilaan noqon doona haddii la yidhaahdo iyo baskaan kaxayn doona marka inuu noolaaduu ka fekerayaa caqligiisii wuxuu ku soo koobay maxay inuu noolaado waayo tagsiilanimadan iyo basnimadan iyo waa nin wax kale ka waayay inuu noolaado raadinaya maaha inuu dunida tagsiiluhu miyuu tagsiile u yahay inuu dunida wax ku soo kordhiyo basluhu maaha xirfadaan caayayo waa dad xoogsanaya laakiin shabaab ummadi leeday caqligoodu inuu noqdo tagsiilaan noqonaya ama foor bildahay eeganayaan inuu noqdo inay darawalla noqdaan waa dad hamigooda ugu sarreeya uu yahay inay noolaadaan ka warran qof bini aadam oo ilaahay abuuray oo hamigiisa ugu sarreeya uu yahay inuu noolaado umamka dunidu cilmaa lagu hagaa innaguna dhalinteennu hablayo inamaba isku dar weliba hablahaan ammaanaya waayo intaan dhalayo intaan arkayba hablaha waxbarashada ku sarreeya hablahaaba xagga jaamacaadka taga iyo secondary dhammaysta iyo hore u sii socda sida awgeed alamkayna haysta waxaa ka mid ah fashalkaasi xagga waxbarashada ka dhacay iyo caajisnimadan iyo aqoontan gaabka ahee waxa ugu fududuun la qaadanayo arday waliba wuxuu isku dayay waxyaabaha fudfudud ee meelaha un qalanka iyo waraaqda lagu wadwado inuu wadwado war waxa qaada hadda tana wuu adag yahay buu ku leeyahay oo hadduu adag yahay ma uu bini aadam ahayn oo waxa adag u badheeri karayn mar rabo wuxuu rabaa wuxuu marna seexdo marna TV-ga daawado marna kubadda soo ciyaaro hadhowna imtixaanka la yidhaahdo maad saaqidin ee waad tamshi horaad u socon kartaa la yidhaahdo raadacaynaya laakiin inuu wax soo kordhiyo oo qofnimadiisa sugo oo bini aadamka wax ku kordhiyo dunida wax keena diyaaru maaha waxaan leenahay ayuha alikhwa dhalinteennu marka xataa qaar badan oo jaamacadaha ka baxay waa shahaadatu zuur axad alculamaa baa waxay ka sheegeen shahaadatu zuurku waa maxay bay dhaheen qolo jaamacad ka qala jebinaysaa waa taa hadda qaadan doontaan buu ku yidhi markhaati beenaaluhu waa waraaqda laydin siin doona buu yidhi markhaati beenaaluhu jaamacad buu ka baxay aan waxba tayagaynin dhalinteennu waxyaabaha aalaamta ka jirta waxaa ka mid ah waan soo tilmaamay mar horena ihtimaamuhum billacb cayaarta ayaa ka weynaatay nolosha ma diidani cayaar qofku inuu jidhkiisa dhiso oo isdhiso oo cayaartu jecel yahay cayaaro kubad ha noqoto baasket ha noqoto orod ha noqoto in la cayaaro maaha mashkilad laakiin inay hadaful xayaa noqoto waxa loo nooliyay inay noqoto waxaad u nooshay inay noqoto inaad laacib noqotaa waxba dunida kumaad soo kordhin marka khasaaraad shabaabkeennu waxay u badan haddii maanta wax jiddiya aan weydiinno yaa culammadii dunida wax ku soo kordhisay garanaya xataa kuwa reer galbeedka ee gaalada maxaad garanaysaa haddaynu weydiinno waxaa laga yaabaa 2 midh inuu ka xasuusto waxaa cilmi dunida yaalla wixii keenay haddaan weydiinno dadkii muslimiinta ah iyo halyeeyadii dunidan soo maray iyo saxaabadii nebi maxamed maxaad garanaysaa waxaa laga yaabaa inaan waxba garan laakiin maanta haddaan weydiinno tiimamka dunida cayaara ka warran yaa isbiis u ah manchester hebel baa u ah madridna hebel baa ka ah meel heblaayana hebel baa waxa tiim dunida jooga kuwa difaaca ka cayaara warkaa ka kaalay wuxuu yaqaanaa inta carruura u dhalay iyo fasixii dhoweyd halkuu tegay iyo sanadka meel heblaayuu marayay iyo waa gaal yar oo aan wax ka dhexeeyaa jirin yacni hadafku markuu lumo maka soomaa halkaynu u tukannee muslimiintu dee madiine islaam mooyaane aan gaal laga ogolaynba soo maaha ardada iskuullada dhigata subaxii iskuulka khamiisku waa dirays dhammaantood khamiis bay sitaan casarkii haddaad soo baxdo markaa qof dhallinyare arki maysid ilaa iyo garan isboortiya oo nambar dhabarka kaga yaalla halkana magac weyne kaga qorayay buu sitaa waxaa dunida cayaare arkaysaan makay dhex tuban yihiin aduu meel kale maxaad u malayn marka haddii maka foor bildaha yaallaa uu yahay maka haddaad saa u eegto inaan yaroo dugsi dhexe ku jiraan garanku sito dhammaantii waa sport
waana maradoniya faaladoona halkaa kaga wada qoran yani kuwaasaa ku wada yaalla idan waa alam itijaahii shabaabkeenu dhan kuu sii socdo oo runtii waa alam xooggan oo jira waxaan leenahay alamka dadkeennan haysta waxaa ka mid ah kuwa u dhigmo atacalluqu shadiid ay aflaamta iyo muusikada iyo waxaas maalin dhaweyd Norway inan yaroo Kanada yaraa yimi wixii dhalinyaro joogtay airportka agtiisa ay u hoydeen markaasaa la yidhi warde kan malawaabi diliyo boolisku meel dambe ka saaray waaba la wada ooyaya maxaa loo ooyaya waxaa la yidhi inan yaroo heesoo boodbooda weeyaan wiil yaroo cadoo boodboodayoo muxuu samaynaya wuu heesaya khalaas dadkani waxay dhowr maalmood bay bannaan cidla fadhiyeen inay arkaan la sugayay waa hadafkii ka lumay aalaamta muuqata waxaa ka mid ah haddaynu nihi qur-aanku dhalintu inoo tilmaamay kuwa waalidkooda ateeca aalaamta muuqata waxaa ka mid ah shabaabkeenni iyo waalidkoodii uu la fududaaday khafiifsaday wax weyn u arag warkiisu ka soo qaad ma leh ixtiraam ma jiro inantu waxa laga yaabaa hooyada inay tidhaahdo dee maxaad aniga horta dheriga igu dirtaa karsada dee idinba waa wada joogtaana waa dhantiine haddaba waa inantii dhammayda la dhalay guriga joogtay inanku waxa laga yaabaa haddaad tidhaahdo ninba ii sheegaya aabba koobka ay soo qaad baan ku celiyey buu yidhi 2 jeer oo maalintii dambe wuxuu yidhi horta aabba mahaandhi ka baa halkan unbu fadhiya wuxuu dhahay waxay soo qaatay isagu yacni caqligu wuxuu ka gaadhsiisan yahay aabbihii markuu yidhi koobii soo qaad inuu arko odaygu mahaandhi ka baa kaan loo shaqaynaya muu koobkiisa doonto waa alam runtii alam halkuu ahaan lahaa inan iyo inanba dad waalidkooda adeeca ducadooda u arkaa wax weyn taladooda u arkaa caqli nolosha soo tajribeeyo ka weyn yani waalidkaa wuxuu soo jiray noloshu maaha tanqal iyo buugga lagu dhigto qura noloshu waa tajaarib alxayaa waa qofka bini aadamka wuxuu soo maray waalidku nolol buu soo maray caqli badan buu sidaa ay ahayd inaad ka dhimbiil qaadato adigoo dhallinyaro ah ka tusaale qaadatid waxay ahayd inaad dareentid nicmatul wujuud xataa aabbahaabaa leh waxaan leenahay waxaasoo dhammi waa aalaamtu sheegay sheekh saciid ibnu masfir waana aalaam caalam alislaami oo dhan haysa haddaaduu isagu sacuudiga ka sheegay meel kasta ka taagan aamaashaynu u baahannay waa maxay waxa weeyaan inaynu abuurro dhallin toosan oo ku toosan diinta rabbi dhallin toosan oo ku toosan maxay diinta rabbi subxaana wa tacaala inaynu abuurno dhallin toosan oo ku toosan waxbarashada iyo cilmi baadhista ereygaa waan ku celcelinaya ikhwatii waayo idinku jaaniska haysataan soomaaliya kuwa jooga jaaniskaa ma haystaan intaasoo jaamacadood baa ka furan laakiin waa kuwan qalinka iyo waraaqda la isku madoobeeyo wuxuun bay tari insha allahu tacaala laakiin idinku intaasoo jaanis baa haysataan oo waddannada ku nooshin duwalka jooga ay rabaan inay lacag idinku bixiyaan oo professor idiin sameeyaan oo wax walba oo ayi fan baad baran kartaa laakiin dadkii himmadan lahaa baa liita idan aamaashaan qabaa waxa weeyaan inaynu dhallinteenna dib u afuufno oo ku afuufno cilmiga iyo sugistiisa waxbarashada iyo qiimaheeda markaasaynu noqonaynaa kuwaynu la joognana dad muxtaramiin ah oo daatadooda sugaya dadnimadooda haddaad noqotona waddankaagaad noqonaysaa qof wax ku biiriya waxaa laga yaabaa dad badani inay markiiba kuu soo qadimaan caraaqisha yaryara ka hor imanaysa loon baa la qaadanaya loon waxaana lama ogola kan lama ogola war dadku waxbuu bartaa isagoo aan loon qaadanayn waxbuu bartaa wuu dadaali karaa qofka bini aadamkii wuxuu ku xidhxidho war halkan baa timiyadan cidina ku keenin waxaa qaarad iyo bad jiroo dhan baad ka soo gudubtay markaasaad leedahay jaamacaddan waddada loo maro ma garan karo hada macquul ما معقول آخر الدنيا بات كتمي ديورات فول عركة كبح بدمر دولك تشيح صحارى مر بدمر ما لها تكسب بوديني ما شرتو
waxaasoo dhan waxaad kaga booday caqlaad ku adeegsatay sidaad waxaasoo dhan u mari lahayd caqligaa inaad wax ku baran kari weydo u malayn maayo inay jirayso waxbarashadu melihi ma laha dhib bay leedahay ardaygu weligii waa faqiir intuu arday yahay mushkilaad badan bay leedahay cadaadis badan baa kugula kulmaya mararka qaarkood waxaa la arkaa in midabkaagu raasiist iyo wax lamid aad la kulma mararka qaarkood waxaa la arkaa inaan dee adiga lagugu talagelin waxbarashooyinka sare maan baawar inaad waddan ka noqoto shaqooyinka hoose qabatid laakiin adiga xagga sare hunguri kaaga jira dee hungureeyo ha soo noqonin waa lay diiday laaf maahe waxaan markaa ku celcelinayaa leeyahay aamaashu yididiiladu rajadu aan qabo waxaa ka mid ah inay dhalinteennu dib u sameeyaan najaax cilmiya rag iyo dumarba inay sameeyaan maxay najaax cilmiya guul cilmiyeed amaasha aan qabo waxaa ka mid ah dhallinyaradu wakhtigooda inta ugu badan le inay wax macno leh ku bixiyaan rumuustaad caalamka maqasho meeshuu doone ha ka yimaado waa dad dadaalay odaygii maraykanka ugu ikhtiraca badnaa Addison ayaa waxaa la weydiiyey cabqarinimadu intee baa cilmi iyo waxbarasho ah wuxuu yidhi ama intee baa nasiiba 1% baa chance buu yidhi 99 na waa sabir iyo dadaal waliba ninkaasi kun iyo dheeraad ikhtirac buu leeyahay baateen kun iyo in kun shay ka badan buu dunida ku soo kordhiyo technology kun shay ka badan light-kan inoo baxa waa ninkii dunida sameeyey ninka iskuulka waxa looga eriyay wax garan maysid baa la yidhi iskuulka waa laga eriyay waxa la yidhi waa dadkan maskaxdoodu dambayso handicap baa la yidhi wax badan ma baran kartid waa la eriyay laakiin hooyadii baa ku qanci weyday inuu handicap yahay hooyadii baa wax bartay islaantii dhashaa u xidhxidhatoo tidhi aniga inankaygu handicap maaha saasuu wax ku soo bartay dabeetana wuxuu noqday ninka ugu ikhtirac badan reer galbeedka malaayimka waxaan u malaynayaa mid waaxid australia iyo jabanis baa hadda ka badan baan filaya dhowr kun maraya laakiin ninkaas waxaasoo ikhtiraca samaynayay waa dadaal iyo quusasho la'aan iyo juhdi iyo wakhtigiisa uu ku bixiyey meel fiican wakhtiga dhalinta dambe waxaa alam ah xanuun ah wax laga xumaado ah wakhtigiioo la luminayo oo loo waayo wax lagu qabto dhallinyaradu imika iskuulladii fasax bay ka yihin waxaa laga yaabaa in inanka ama inanta guriga joogtaa 5 jeer ku maagaan waayo maxaanu qabanaa dee meeshaan mar iska fadhiya maxaad rabtaa wuxuu rabaa in meelaha la soo wada mariyo caalamka oo dhan baynu isku haysanaa carruurta hala kaxeeyo safar hala geeyo war waxa ka muhiimsan in wax la barto ma diidani fasax iyo meel la tago laakiin wakhtigu cimrigu weliba cimrigoo dhan maaha oday cimrigi iyo carruur cimrigeed kama warramayo dhallinyaroy cimrigaagu waa waqtul injaaz waa wakhtiga wax la soo saaro waxaynu u baahanay inaynu dhallinyarada ku qancinno wakhtiga inaanay iska lumin weliba inta ugu badan bay culamada qaar yidhahdeen inuu guriga joogaabaa fiican inan iyo inanba oo wax baranayo guriga qaar baa joogo tv uun fuushane ama uun facebook ku jira iyo network waxba tari mayso tv maanta dhaa dad marna 1 2 3 ka bilowdo ilaa 9 geysa haddana dib u soo erido katalogu maxaa ku jira marna hore u erido marna dib u erido waxba ka soo bixi maaya qof iyo dhowr kun oo saacadood oo tv aynu daawanay qof waxaya miyaa leedii laakiin ardaygii dhowr boqol oo saacadood jaamacadda galay waa dhakhtar dhowr kun oo saacadoodna waxaynu gallay maxay tv waxna kama hayno Albert Einstein ayaa waxa laga sheegay wuxuu yidhi rubuc saac waxaad sanad wado you will be an expert buu yidhi within 5 years na you will be a national expert waa quarter of an hour rubuc saac 15 daqiiqadood
cilmiga aad sanad 15 daqiiqadood daraasaynaysa buu leeyahay khabiir baad ku tahay haddaad 5 sanadood min 15 daqiiqo daraasaynaysa cilmigaana national expert baad tahay buu leeyahay imise rubuc saac baad dhinta maalintii saacadda iyo rubuc iyo daqiiqo waxba ma naqaan waxa tiraahdaa waar shaqadii saacad baa ka horeysa waxaan qabta garanayo meelaha ma sii joogjoogayay saacaddu iyada inaguma tirsana waqtiga daanay 5 iyo 6 iyo 7 ahayn saacadda iyo labada iyo iyagu waa halumaan waxaan leeyahay alamka waxa ka mid ah ama xanuunada aan diidanahay tawqiir alculamaa iyo waalid iyo dadka waaweyn iyo waxaqoonta iyo kala damaynta weynaynta inay dhalinyaradu barato in dadku dadka ka roon oo ixtiraamo aqoonyahankaaga inaad ixtiraamtid waayo waa aqoonyahan cilmigu markuu ixtiraam helo abuu qofkan cilmiga lehina uu noqdo qof muntijo wax soo saaraya inaga se geel jiraheenna iyo diktoorkeenu waa isku qiimo waayo cilmiga nagteena qiimo ka lahayn khabiirkaas dunidu ay u baahan tahay soo baxay iyo inanka geel jiri waa laba nin oo ilmaadeera shirka hadday maadaan meel kale ma cidina ma ixtiraamayso waxaynu u baahanahay inaynu cilmiga ixtiraamkiisa barano dadka waaweyn ixtiraamkooda barano culimada waxaad arkaysaa dhalinta ninkii laba kitaab bartayba sheekha ugu weyna muftiga ummadda oo abu muran la taagay uu qalday war bal har isagoo iskaba qaldanaanta ku dambaysay yani waxa sheekh shariif oo laga yaabo inuu culimada Soomaaliyeed nool maanta ugu weyn ama ugu aqoon badnaa waqtigiisii ama rag la mid ah ama kaaga dhow rag 40 sano 60 sano 50 sanadood wax sheegayo dad wax barayay ayaa nin 3 buug oo baallacad cad bartay uu leeyahay fataawidii ugu dambaysay baa caynka sheegay hadda waa nadka mid aanu garanayn nadka ayaa ka fatwooda bal fatwada waa dambaysay soo pages kama akhridaan yaa qora guriga kaasi dambeeyay mid fadhiya qoray ma sadoraysa nadkan soo akhriyo waxa ku qoran website hadda gurigan ka dambeeyo fadhiya kan kaasi jeeda nin baa wuxuu ii sheegay wala meel isu waramayso iyo marka soo yiraahdo ma war cusub baa la hayaa kaale ma sayidaan waxan baa jiro oo kan baa dhacayo saan baa dhacayo kan baa dhacayo rasuul daana ku soo qoray buu kay warrabayay baa ku yiri warara ku soo qoray buu fataawida nadka ku taalana waa la mid aanu garanayno yarba wax ku soo qoray meel oo leh caynka alla afar xadiis isugu toosiyay laba mas'alo markaasuu nin caalim oo weyn oo muslim u haysta hawlay fatwa soo baxday caynkan sheegaysta waxaan leeyahay war dhalinyaro ixtiraamka barta ixtiraamka la ixtiraamo dadka ahlul cilmiga iyo aqoonyahanka iyo waayeelka iyo culimada iyo dadka waaweyn حتى قفكو هدو قلدي قفك أهل علمك سفيع صحابتي أنا دي شاقة هالحديث وحا نبي عليه الصلاة والسلام ندى اللي يرابه وشغين شري نكيد اللي يرابه وشغين شري ربيع بالورن شري أيه وحكوية لنبيه ألا تزوجوا أي ألا تتزوجوا حديث إمام أحمد باورين ما تقول ستي markaasaan idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo shaqadaada iyo waxaasaan kaga mashquulayaa ma guursan maayo maalin dambe haddana wuxuu nebigu ugu yidhi buu yidhi war maad guursati markaasaan idhi buu yidhi ma ilaahay rasuulkiisiiyo inaan kuu khidmeeyo kuu shaqeeyaan rabaa ma guursanayo maalintii dambe aan fakaro waxaan sidhi buu yidhi war nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu kugula teliyay khayr unbaa kuugu jira hadiidi nebiga maalin dambe hadduu ku yidhaahdo maad guursatid waa yahay dheh maalintii dambe nebigu yidhi alaa tasawaju maad guursatid markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa guursanaya dee yaa ii guurinaya ila waxbaba ma haysteen nin xoolale ma ihiye markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi banu fulaan reer hebel u tag qolo masaajid ka yara durugsanayd reer hebel u tago waxaad ku tidhaahdaa inanta heblaaya la yidhaahde hebel dhalay ayuu nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha loo guuriyo
كعب بن أبي سلمة هلو قوري كعب كله بس الربيع أبوها ربيعة هلو قوري ده ووتجي نمكي ووتجي وحيدي النبي قال صادري عليه الصلاة والسلام وحيدي إن أنت بلا يلا إذا عنك سيها اللي يقوري وحيدا النبي محمد مر هدوك صادري كعلين منه إلهي رسول كي سوى يلينا صافر السو ولو قوري كبر يبالو قدري مركز صار نقطة سوى هدنا مروجيسن بالنبي قويم ما حد عيب يقول حولي لا رسول كي سوى غير ونكسن بعد يدرت إن أنت والله يقول دري وحب اللي يمويدين دي حتى إن أنت مهر كيدينا ما هي وحبابا من غير كودا أبو النبي قوي ولا وحولي ورا الله صوروريو لفت مراد لو ذهبه والله كان مركز سيري قاضي وجاي وحتى هذا إن أنت الصداقة دي مهر كيدينا واكن والله النقطة وتجو حولي كنا وين أنت الصداقة دي وحيد هذا نفي عن باطل وأبدا يمهر كاد بحسينه إلهي كأبال مريو وكأقبلين وصار نقطة شغل مروجيسن بهذا صار نقطة والنبي يقول هو بحال عاي حولي لا رسول كيسي خير في عم بنوتجي لفت مريد ذهبا ما ديجي يوح اللي يقول وح بضبط كانت إلى كأبال مريو دو حنكو أروس قال أنا ما هي وحول النبي يقول لي نيف الله كان نينكي بو يرد هدنا بريدة في الأيام اللي رجري بريدة هيو يرد وحول لي ورا الله صوروريو وين بالله صوروري قيمسي وين بالله كان قلب الليل حديث إلهي رسول كيسي وان كان محان كودرا وحبا ما يسته حالو قال يا وكا وعدورد غوريغي تاع عاشو تاغو ان ويلك راشinku ku jiray halka yaala nabiga ay soo diray caashu yimi Aisha wada Aisha Ilaahi rasuulkiisa bay soo diray wax lagu yiri miktalka halka yaala shaciirku ku jiro soo dhib Aisha waxay tiri maraga wax kala haysanaa reerku inta halka ku jirta ayuu haystay laakiin mar hadduu nabigu ku yiri soo dhiib deeqa hada bay tiri guriga nabiga intii haysteen taalayna uu soo qaato qoladii buu yimi deetana wuxuu yiri wuxuu nabigu yiri u geeyo waxa tiraahdaa neefkaana qala shaciirkaana khubus ka sameeya tee walimadadana dhigo nimankii buu tago wuxuu yiri neefkana inoo qala shaciirkana khubus laga sameeyo dee walimadii arooska hala dhigo waxay yiraahdeen shaciirka xashidiisa iyo hagaajintiisa iyo dubistiisa anaga ka qaadnay laakiin wanka idinku kaxeeyo soo qalo deesu kan keena waayahay buu yidhi wankii bay reerkoodii soo kaxeeyeen iyana khubuskii bay sameeyeen wankii baa la soo qalay waa la keenay markii la keenay wankii raashinkii nabigu u yeedhay saxaabadii subaxii baa raashinkii la cunay arooskii baa la dhigay rabiico haddana yara murugaysan buu nabigu arkay waa rabiic see wuxuu jiraa buu yidhi waxa ilaahay rasuulkiisiyo de wax biilaba ma hayo reerkii waxa laaliyo waxa siiya meesha ma jiraan uu soo kaxeeyay dhul buu nabigu siiyey beer ayaa qayb la siiyey qaybta ku xigtay isagana Abi Bakar baa la siiyey qisada waxaan u socdaa aniga iyo Abi Bakar baa beerta geed u dhaxeeyaan isku qabsanay buu yidhi anigu beertayda xadu yahay iyo anigu tayda xadu yahay Abi Bakar xaruuri buu ahaan jiray in kulul buu ahaan jiray hadduu cadhoodo Abi Bakar wuu cadhooday geedkaana aliyaana le markay tagtay buu Abi Bakar cadhooday dabeetana eray buu ku yidhi Abu Bakar laakiin haddana awaab buu ahaa nin soo noqosho badan buu ahaa markiiba wuu soo noqday dabeetana wuxuu ku yidhi ninkani wuu ka xishooday Abi Bakar waxba kuma odhan dhallinyarada Abi Bakar baa wuxuu yidhi iga gooso oo igu dhow wixii aan kugu yidhi wuxuu yidhi kugu odhan maayo Abi Bakar baa yidhi waad igu odhanaysaa waa ilaa nebigaan kaa soo ashtakeynaya eraygii xumayaa ku yidhi adna markaaga igu dhaho gooso wuxuu yidhi kugu odhan maayo wuxuu yidhi nebigaan kaa soo ashtakeynaya waan iska soo dabagalay buu yidhi Abi Bakar oo sii socda Abi Bakar oo sii socda qolo reerkoodii ka hortimi waxay yidhaahdeen buu yidhi waryaa maxaa dhacay aad Abi Bakar ka daba socotaa sheekadii buu sheegay wuxuu yidhi beerta aanu geedka timirta baa muran nagu yara dhex maro dabeetana eray xun buu igu yidhi iga goosa buu yidhi waxaan ku yidhi waxba kaa goosan maayo dabeetana wuxuu yidhi nebigaas oo weliba bay yidhaahdeen ma intuu isagu ku maagay baa haddana ku leeyahay nebigaan kaa soo ashtakeynayna ina wadi
deetana wuxuu yidhi waryaan laydin halaagin waa maxay bay idhaahdeen wuxuu yidhi waa duu shaybati lmuslimiin ninkani waa waayeelkii muslimiinta abibakar waxaan ka baqayaa inta aynu u tagno nebiga idinkoo safka ila socdo ee dhinac socda inuu abibakar cadhoodo oo uu u qaatay inay iga hiilinaysaan dabeetana uu nebi maxamed cadhoodo dabeetana ilaahay cadhoodo bani salama in balaaya ku soo degtaa baan uga baqayaa buu yidhi ninkani waa duu shaybati almuslimiine ka gaabsadoo reerihiinni qabta buu ku yidhi ha iska hadheen uu yimi abibakar baa nebiga u sheegay saasaa dhacday buu yidhi eray xun baan ninkan ku yidhi iga goosaan ku yidhi waa diiday inuu iga goosto nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rabiica maa laka waliabibakar rabiico adiga iyo abibakar maxaa idin kala galay maanta wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo sidaa uu kuu sheegay weeyaan dee aniguna waa waayeelkii muslimiinta abibakar waa nimaanu jecellay eraygu igu yidhi anigu kuma odhan kara abibakar marnaba ku odhan maayo markaasuu nebigu yidhi sax baa tahay ha ku odhanayna waxaad tidhaahdaa allaahuma akfir liabibakarin dheh ilaahay oo abibakar dembigiisa dhaaf dheh ilaahay baa u dembi dhaafaye dabeetana rabiica wuxuu yidhi ilaahu abibakarna u dembi dhaaf abibakar wuu ooyey dabeetana uu iska tegey maxaan uga socdaa ninkan dhallinyarada ahi wuxuu diidan yahay abibakar oo isaga maagay inuu jawaabaa buu diidayay ixtiraaman lishaybatihi walicilmihi waliasbiqiyatihi wuxuu u ictiraafsanyay inuu yahay waayeelkii saxaabada inkastoo waayeelku uu isaga ku xadgudbay haddana wuxuu diidan yahay inuu ereygaa ku celiyo nebi maxamedna wuxuu ku leeyahay sax baatay waxaan uga jeedaa marka xataa haddii waayeelku qaldamo ama khata ama culammadu qaldanto waxaan leeyahay dhallintu waa inay barataa tawqiirka dadka waaweyn waxaan ku soo gebagabaynayaa masalati ziwaaj dhallinyaroy guursada hungurigan iyo indha taagtaagga kani wuu hadhayaa markaad guursato nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi war dhallinyarooy ninkii guur awoodo guurso waayo ishana isagaa u aqadu lilbasar wa axsanu lilfarj si kasta isagaa kuugu fiican dee haddaad hungurooto gurigaagaa inan fiicani joogtaa inan kale uma baahnid marka haddaad cid daawan lahayd tu qurux badanoo dadka kale iska qarisay oo keligaa daawashadaada ogol baa joogta uma baahnid marka waxaan ku soo koobayaa wakhtigu uu dhammaaday dhallintu waa fitratu linjaas ayuha alikhwa waa wakhtiga midho dhalka wax la dhaliyo laakiin duu himma waa inaad noqotaa waxaan ku soo koobaya markaa saxaabadii nebi maxamed ee caalamkan dawakhiyey ee labadii dowladoodee dunida waaweynaa ka soo hoyday ee aqoon iyo diin iyo cilmi keenay dhallinyaray ahaayeen caalamkana umamku dadka ay ku xisaabtamaan mustaqbalku waxay dhahaan waa dhallintu siday u egtay ummaddii dhallinteeda ku faraxsan siday u diyaarisayna waa ummad han weyn oo rumaysan berrito inay calanka qaadayso oo iyadu umamka hoggaaminayso ummaddii dhallinteeda ka quusatayna waa ummad oohinta iska tiraysa oo arkaysa godka ay ka sii lalmato iyo meesha ay ka sii laalaado idan marxaladdu dhallinyaronimadu ay leedahay waa marxaladdaasi u baahanna isbeddel in laga sameeyo وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم